بارنت وجعل مقطع ها عشان wax kale kuma taageersan wax kale oo ku taageersan caaw ma jirto hal point aan ku taageersan hatta second ma aha 1 point aan ku taageersan 1 point-ga aan ku taageersan shabaab waa maahan qabiil ma lahan qabiil ma leh waa Soomaali weyn wuxuu ka yimid raas casir ilaa raas Kamboni inta Soomaali ka koobantay ka kooban yihiin caawa hadii iyaga la saarana wax bedelaya oo munaasib leh oo caaqiba leh oo maxaan ku iraadahay dawlad keenaya ama administration keenaya ama nabad dadka u keenaya ma jiraan waxa kaliya oo loo digay degnaa waa qabiil waa reer hebel waa maxaan ku iraadahay ishakiim xunkaha darar ma wallahi waxa weeye maxaan ku iraadahay qabqable hebel warma ku jirayna 20 sano soo marnay qabqable hebel hadda ilaahay subhanahu wa ta'ala na dhaafiyay qabqable iyo wax lamida iyo wax gaal soo hogaamiye iyo wax siyaasi sheegta oo maxaan ku iraadahay kolba dollar soo qaata waxa soo dhan ilaahay baan dhaafiyay wiilasha sirka waa noo soo baxay badeecadii iyo maxaan ku iraadahay businesskii waa boomi diintii iyo masaajidadii waa boomi qabqable oo dhamaataha qabqable dambe ma doonin oo siyaasi dambe ma doonin oo maxaan ku iraadahay professor dambe gaalo wax ku soo barto oo maxaan ku iraadahay gaalo dabada ku wato dooni mayno waxa soo dhan diidnay wallahi diidnay wiilasha sirarka waxa weey caawa dadku si fiican bay u seexanayaan xabad dhacaysa ma arkaysid laba maleeshiya isku soo duushay ma arkaysid laba qabiil ba isku duushay ma maqlaysid waxa weeye dadku nimco iyo kala arag barwaaqi ku jiraan marka calankaana ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dalkaana nabad way haystaan ilaahay ba ku manaystay nimankaas noo keenay nabadda kale la raadinayo ee gal raadinayo ee maxaan ku la naadinayo aluma ba arag ba ilaa hadda sheekh shariif baa nabad aan soo wadin waxaan nabad soo wadin maxaan ku iraadahay wax lamida waxaan nabad soo wadin gaalkaas hadda maxaan ku iraadahay dadka aan ka naxeenin soo dhiibahay maxaan ku iraadahay baashi 10 milyan iyo 40 tan oo huba xagee loo wada ya 10 milyan iyo 40 tan oo huba war dadku waa baabaasan yihiin nabad bay u baahan yihiin nolol bay u baahan yihiin irsaaqad bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin arad wax tara dalkan wuxuu u baahan yahay construction iyo maxaan ku raad in ummadan ay horumar gaarto war ninka gaalka dalkiisu waa nabad waa caana iyo wuxuu ku saxdaa iyo nabad ku saxdaa dhaqaalo haystaa maxaan ku raad economy stability haystaa peace stability haystaa ku soo dhiibaya 40 tan oo huba iyo maxaan ka dhowr milyan oo dollar aaw dalkaaga iyo diintaada waxa aaw meeye ninkaas ajeebka gashanahay uu soo dhiibay iyo in maxaan ku raad meelaha wadamadan Afrikaanka ah gaajada Djibouti ay ka mid tahay wax la mid iyo Uganda ba adiga kugu ka baayac mushtarahay oo dalkaadii waxa waa kugu dul nool oo adiga imsh kugu dul qa شباب ومواطنين صوماليين أنا أنت سنتاجنا 20 years aan soo marnay saaxiib 20 years aan soo marnay all of them wax cusub ma aha wala marka waxa la yiri ninka dhaanka soo wado warkaa waa ka soo horeeyay marka saasaan leeyahay